kala orod ka socda madaxtooyada siyaasiyiin caan oo ciidan la galay dumarjiyada dhexdooda ay ka carartay xilalka wasaaradda ayaa la isku haystaa xasan sheekh oo raba inuu wasaaradda xusho iyo xamse barre oo madax banaanin raba ay ka dhex talan tahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo loo rabo wasiir arrimo dibadeed iyo kenya oo 10 soo qorartay kulamo lagu kala kacay xalay oo gacan ka hadal isu bedeli raba beebayaal ayaa lagu jaray jagboontiga filada horyaala iyo aaga hooyooyinka oo xiran koofiyo gaduudii way yaaban yihiin waa galwaradii warbixin degdeg ah xaaladdu way adag tahay xilalka lagu dagaalamayo waa kuwe siyaasiyiinta awoodda badan ee filada gala iyo ragga wata ciidanka jidadka xirtay ayaa idinkuga haynaa warbixintan degdega ee sheegareeya oo ku faafiya dunida meelba ku toor muuqaalka beejkeena galwareed soo follow garay sidoo kale youtube-keena galwareed tv subscribe soo saar hagaaga aan ku bilaabo wararka naga soo gaaray fila Soomaaliya ayaa ku soo waramaya in kulamo saacadihii ugu dambeeyay ka socday halkaas ay fashil ku soo dhamaadeen waxa la isku maandhaafay sida loo soo xulayo wasaaradda oo soo dhisay Xamse Cabdi Barre madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rabay inuu qayb ka yeesho wasaaradda soo baxaya talada ugu badan oo isagu yeesho gacantana ugu soo qoray Xamse Cabdi Barre golaha wasaaradda oo ku dhawaaqayo qaarkood ayuusan ba aqoon sidii ula shaqeyn doonaan su'aasha ugu weyn ee uu weydiiyay madaxweyne xasan laakiin weli jawaab aanu helin siyaasiyiin caan oo ka tirsan dumarjiyada ayaa fila Soomaaliya ku jira waxay rabaan in xilalka wasaaradda loo dhiibo laakiin qaarkood ayaa hadda rajaxmo wajahaya waana sababta keentay in kulamadu ay kala carar ku dhamaadaan madaxtooyada hadda booq ayaa ka taagan ciidamo iyo beebayaal ayaa ku jiran jagboontiyada soo gala fila Soomaaliya aaga guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka qaranka ayaa gawaarada gaashaamo yaalaan lama oga sababta ujeedada ka dambaysa in ciidanka la soo dhoobo halkaasina waxay dadka qaar ku macnaynayaan in madaxtooyada uu khaladaasi baahsan ka taagan yahay siyaasiyiinta qaarkoodna ayba isfeereen xaaladda ayaa adag Kenya ayaa keensatay 10 wasiir madaxweyne xasan sheekh maxamed ay u soo mareen axmedoobe iyagoo adeegsanaya axmedoobe ayaa xasan sheekh la soo hadlay wuxuuna ku wargeliyay in Kenya ay rabto in 10 wasiir laga siiyo golaha wasiirada ee uu soo magacaabay Xamse Cabdi Barre waa tallaabo ugub ku ah Soomaalida dhexdeeda in Kenya wasaaradda iyada ay rabto soo xulato ayaa ah tallaabo kale oo carqaladeyn karta dowladnimada Soomaaliya iyo hoggaanka xasan sheekh madaxweyne xasan ayaa Xamse Cabdi Barre u dhiibay warqadda ay Kenya soo qortay axmedoobe ka timid laakiin Xamse Cabdi Barre ayaa diiday tallaabadaasi sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa isna soo qortay 2 wasiir oo u rabo inay xilka qabtaan waxa uu soo dajiyay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo loo rabo wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale Sambalolshe oo loo rabo wasiirka wasaaradda amniga laakiin Xamse Cabdi Barre ayaa si toos ugu gacan saaray inuu qabto liiska ay Kenya soo gudbiday labada nin oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo qortay intaba Xamse ayaa u sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in liiskan uu soo qortay Kenya ka yimid uusan marnaba aqbali karin isaguna uu doonayay inuu madax banaanaado inuu soo dhisto golaha wasaaradda ee la shaqeyn kara si dowladdan ay u sameeydo hanaqaad wanaagsan iyo tallaabo horumarineed oo dadka Soomaaliyeed lagu badbaadin karo laakiin xasan sheekh maxamuud ayaa arintaasi ku gacan sayray xaaladda fila Soomaaliya ka taagan ayaa u muuqata mid si weyn u sii baahi karta siyaasiyiinta raba in loo dhiibo xilalka wasaaradda ee hadda isku hirdinaya ayaa waxa ay markaasi danaynayaan in ninka uu ka awooda badan yahay xilkan loo magacaabo daml jadiid oo markii hore ku heshiiyay inay iyagu isugu soo koobaan golaha wasaaradda iyagoo la shuraaka ah xisbiga kale ee daljar oo daml jadiid ka faracmay ayaa hadda waxa ka taagan khilaaf xoogan oo dhinacooda ah arrintan ayaa sababtay inay kala ordhoobaan siyaasiyiinta ballamihii looga baxo qaarkood sidoo kale rag xasan sheekh maxamuud soo dhisay ay waayaan xilalkii ay doonayeen inay helaan xaaladda oo adkaatay darteed madaxtooyada khaladaasi ayaa ka taagan waxayna halis ugu jirtaa dowladda xasan sheekh maxamuud inay fashil wajahdo isla markaana ay isku dagaalaan sidii loo soo dhisi lahaa golaha wasaaradda warar kala duwan oo helayno ayaa sheegaya sidoo kale in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu keensaday 2 nin oo u rabo inay u noqdaan golaha wasaaradda xubno ka mid ah waa wasiirkii cadaaladda ee markaasi uu roob la soo magacaabay ugu dambeyntiina ahaa wasiirka gaashaandhigga oo loo yaqaano wasiir TikTok arrintaasi xasan sheekh maxamuud waa lagala dardaarmay laakiin ilaa iyo hadda ma jirto saansaan muujinaysa in uu fuli doono ballanqaadkaasi sidoo kale al-Cadaala oo rowlo dagaal adag la soo galay intii uu joogay Soomaaliya madaxweyne wasaarahan ahaa ayaa isna lagala dardaarmay xasan sheekh maxamuud inuu siiyo xataa ugu yaraan xil wasiir ku xigeen warar kala duwan helayno ee ku saabsan arrimaha golaha wasaaradda soo magacaabidooda ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadii uu dib u dhici doonto maadaama khilaafkan uu qaadan karo
toddobaadyo iyo sidoo kale bilo intaba ra-iisul wasaare xamse barre ayaa fashil ay xukuumaddiisa ku bilaaban doontaa haddii durbaba uu khilaaf ka dhasho qaabka loo soo xirayo golahiisa wasaarada. waxaa dhici karta in xamse loo dugduugo wasaaro aan shaqo ka lahayn, taasi oo sababi karta in maalmaha ugu horeeyaba xilka qaadis iyo iska dawareeg ay bilaabato, golaha wasaarada musuq maasuq ku bilowdo, xaaladuna adkaato oo dalka ay shaqadii ay u hayeen ay gabaan. ra-iisul wasaare xamse barre ayaa dhowaan la horgeeyay golaha baarlamaanka, halkaasi oo codka kalsoonida uu ka helay. waxaa markaasi si weyn loo hadalhayaa sida xamse cabdi barre ugu guuleysan karo inuu soo dhiso dowlad taya leh oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud la shaqeyn karta. xasan sheekh maxamuud ayaa sanadihii lasoo dhaafay oo xukunka soomaaliya hayay waxaa lagu eedeynayay in si weyn dadkiisu ama saaxiibadii la shaqeynayay ay u musuqmaasuqeen hantida qaranka, arrintaasi oo sumcad dil ku noqotay madaxweyne xasan sheekh maxamuud heer oo gaaro in xilka madaxweynenimada codad aan cadad lahayn looga guuleysto. xaaladaha guud ee dalka ku gadaaman waxaa ka mid ah arrimaha abaaraha oo iyaga laftirkooda u muuqda in hadda ay kasii darayaan. dowladuna ma jirto tallaabo ay qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur oo loo magacaabay ergeyga gaarka ee madaxweyne xasan u qaabilsan arrimahaasi ayaa isaga hadda wadamada carabta ku sugan. waxaa la qorsheynayaa in wasiirka arrimaha dibadda laga dhigo, walow xamse cabdi barre uu saliiga xoogan ka muujinayo qaabka cabdiraxmaan cabdishakuur wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya u noqon karo. mashruuca cabdiraxmaan cabdishakuur loo geeyey arrimaha abaaraha ayaa markii horeba lagu micnay inay tahay qorshe lagu doonayo in gebi ahaanba lagula wareego hantida beesha caalamka iyo shacabka soomaaliya ugu talagalaan in lagu caawiyo dadka soomaaliyeed ee doonaya in markaasi abaaraha looga garaabo lana garab istaago xilligan adag ay wajahayaan roobyarada baahsan ee ka jirta dadka, islamarkaana macluusha baahsan laga soo warinayo gobolada kala duwan ee dalka qaar. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa hadda danaynaya inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya. ujeedada ayaa lagu sheegay in cabdiraxmaan cabdishakuur uu shaqo raadis yahay maadaama uu ku hongoobay xilka madaxweynenimada soomaaliya, lacag tiro badan uu iska bixiyey, islamarkaana hadda uuba musallafay. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warar kala duwan oo helayn waxay sheegay inuu rabo in wasiirka amniga soomaaliya laga dhigo ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed cali sambalwish oo horey u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, kuna eedeysa inuu qayb ka ahaa mashruucii etoobiya loogu gacan geliyey cabdikariin qalbi dhagax. ra-iisul wasaare xamse oo cabdikariin qalbi dhagax ay isku beel yihiin ayaa ka biyadiidan tallaabada uu xasan sheekh ku doonayo in sambalwish loogu dhiibo xilka wasiirka amniga ee soomaaliya, maadaama wasaaraddaas ay tahay wasaarad weyn oo si weyn u saameyn karta howlaha dowladda uu rabo inuu soo dhiso ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. xaaladaha ku gadaaman dowladda, xilka wasiirka ee la isku haysto iyo tallaabooyinka xamse uu qaadayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud rabitaankiisa ayaa u muuqda kuwa aan iswaafaqi karin oo sababi kara in labada nin uu dagaal hordha ku bilowdo iyadoo aan tallaabo la qaadina khilaafkooda soo shacbaxo, ayna halkaasi ka dhalato in mooshino ay ka bilowdaan dowladda xasan sheekh maxamuud ay cuuriyaanto. shargareeya xogaan qeyta faalada nugul wadaag aragtidiina tan iyo kulanti dambena nabadgeliyo.